ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Goday ee xarunta maamulka gobolkaasi Shabeelle. madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar golaha wasiirada deegaanka uqaal iyo waxgarad ayaa ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga uu hogaaminayay gagada diyaaradaha ee magaalada Goday si ballaaran ugu soo dhaweeyay. ra-iisul wasaaraha ayaa lagu wadaa in booqasho qaadata 2 maalmood uu ku mari doono qaybo kamid ah deegaanka Soomaalida. waxa uu ra-iisul wasaaruhu uu daafuray bilaabida wadooyin isku xidhi doona Goday Qalaafo Feerfeer oo dhererkeedu uu markaasi uu dhan yahay 270 kilomitir oo dhismaheedu uu socon doono muddo 4 sano ah. haddaba waxaa haatan khadka si toos ah ugu jira oo ku sugan magaalada Goday ee xarunta maamulka gobolka Shabeelle wasiir ku-xigeenka xafiiska jidadka iyo gaadiidka ee dowladda deegaanka Soomaalida injineer Cabdiqaadir Bashiir oo kamid ah mas'uuliyiinta deegaanka ee markaasi ka qayb qaadanaysa soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed. wasiir ku-xigeen haddii aad maqli karto waxaad warbixin naga siisaa wadooyinkan uu ra-iisul wasaaruhu uu dhagax dhigay iyo imaadkiisa. wadooyin waxa ra-iisul wasaaruhu wuxuu u imaaday wadooyin 3 ah oo dhaadheer oo gobolka Shabeelle ka bilaabanayo gobollo kalena u talaabaya oo la dhagax dhigayay iyo maxay ahayd isla markaana meeshii West Goday biyo xireenkii iyo dhulbeereed inuu soo eego iyo sidoo kale wadooyin faafan iyo galaalshe oo iyaduna la xarig jarayo iyo hawlo kala duwan. marka waxaan ku soo dhaweynay saaka subaxdii garoonka diyaaradda Goday isla mar ahaantaana waxaan u dhaqaaqnay goobtii dhagax dhigga laga sameynayay 3 wado oo kale wadada Goday Qalaafo oo loodkii koobaad wadada Goday Hargeysa ee loodkii koobaad iyo wadadan Yoocale iyo Dhanaan loodkii 3aad. marka wadooyinkan haddaan ku kala sharaxo waxa weeye wadada Goday Qalaafo oo 95 kilomitir oo wadada nooca asphalt concrete ama laamiga ugu fiican darajada koowaad ama darajo labaad noqonaya. labada darajo midkood buu noqonayaa inkastoo darajadii ayna ku qeexin. wadadaas oo waxa dhisaya China Railway Engineering oo ay dhisayeen waxayna ku qaateen lacag dhan 1 bilyan iyo 530 milyan. waxaana fanka bixinayo dalka weeye Itoobiya dawladda 3 sano iyo 6 bilood inuu ku dhamaado loogu talagalay. marka wadadaas waxay isku xidhaysaa gobolka Shabeelle dhexdeeda weeye. gobol ahaan waa gobolka Shabeelle degmooyinka Goday Qalaafo ay isku xidhaysaa. waxay sii maraysaa qabalayaal Ilaan Bandhadho iyo Duudcadde iyo Baare iyo Hargudud qabalayaashana way sii dhaxmaraysaa. marka wadadaas inteeda badan dhulku waa dhul fidsan oo filaate 4% iyo noqonayso buuraley. wadadaasna marka wadada maanta la dhagax dhigay ugu horeyso wadadan Goday Qalaafo iyo Mustaxiil iyo Feerfeer oo loodkii koobaad uu yahay Goday iyo Qalaafo weeye. wadada labaad waxa weeye wadada Goday iyo Hargeysa. wadadan Goday iyo Hargeysa loodkeeda koobaad waxa weeye 100 kilomitir. 100 kilomitir waxa qaatay construction iyo contractor la dhaha qaatay. waxa lagu dhisayaa 1 bilyan 893 milyan 759,386 bir baa lagu dhisayaa. fankana waxa bixinaya waa dalka Itoobiya. waxa loogu talagalay 4 sano inuu ku dhamaado. wadadana waa asphalt concrete. asphalt concrete waa darajada ugu wanaagsan ee laamiga. marka wadadan waxay isku xidhaysaa ka gobol ahaan gobolka Shabeelle iyo gobolka Afdheer bay dhaxmaraysaa. degmooyinka ay mareysana waxa ka kooban
degmada goday degmada cadaadle iyo kooxle degmada kooxle oo ay ka marayso dhara iyo qabalaha la dhaho marka loodkiisa labaad marka ayaa asaguna 100 kilomitir oo kale yaa lagu guda jiraa sidii loo gaarsiin lahaa Hargeysa xarunta gobolka Afdheer qabalayaasha ay marayso Berleys Malka Salax Cudi Dharaay iyo Afcadde qabalayaasha way maraysaa 100 kilomitir intaas oo qabalayo ayuu maraya marka wadadana waxa aan u sheegay wada waxay ahayd gobolkan Afdheer iyo Liibanba meelihii la isku mari jiray ee dadka caqabada aad ugu haysay bay kamid yihiin waxa la rajeenayaa inay ka soo kordhayso isku socod iyo ganacsi ballaaran iyo isku xir maxay ahayd labadan gobol wadada saddexaad waa wadadan waxay ahayd Yocaale iyo Dhanaan wadadan Yocaale iyo Dhanaan waxay ku xiran tahay wadada ka soo baxayso fiiq iyo garbo fiiq saga garbo iyo Dhanaan marka loodkeedii saddexaad weeyo oo waxa dhinacana laga soo galay dhinaca waxa laga soo galay Dhanaan iyo Yocaale marka waxa weeye gobolka Shabeelle oo Dhanaan iyo gobolka Nogob ay projectkan iyo isku xirayaan loodka saddexaad degmada garba qabalayaal kamid ah Yocaale iyo Marameyd iyo maraya degmada Horshagaxna Higlalabiir iyo ka dhaxmaraya qabalaha la dhaho Burqayr iyo Dhanaan maxay ahayd degmada Dhanaan buu ka maraya degmada Dhanaan ayuu ka maraya marka wadadan waxa loogu talagalay inay ku dhamaato muddo 3 sano iyo 6 bilood waxaana lacag ahaan lagu bixiyay 1 bilyan 119 milyan 417,453 bir waxaana construction kan ama dhismahan qaatay Cross Land Construction contractor la dhaho kilomitir ahaana waa 83 kilomitir waana laami wadadan iyadana waa isku darajo yihiin kuwii hore Saba engineering-na waxay ka yihiin consultant marka wadooyinkan guud ahaan waxaan kuugu soo koobi lahaa degmo gobol ahaan gobolka Shabeelle iyo Nogob degmooyin ahaan Garbo Horshagax iyo Dhanaan qabalayaashana wuxuu marayaa Yocaale Marameyd Higlalabiir Burqayr Shiniile iyo Dhanaan waad mahadsantahay waayahay wasiir ku-xigeen intaada ka bixin ma jiraan mashaariic kale oo markaas ra'iisul wasaaruhu dhagax dhigay hadda goobtan aan joogno waxaa lagu dhagax dhigay mashaariicaha wadooyinka jidadka wuxuu kale oo booqday ra'iisul wasaaruhu biyo-gelinta Goday mashruuca biyo-gelinta Goday oo ayuu booqday ka bacdina garoonka diyaaradda Goday ayay ka baxeen tiim ayaga kamid ah waxay tageen meeshii West Imay mashaariicdan beeraha iyo biyo xireenka uu ka jiray halkaas ay soo booqdeen haddana way soo laabteen wayna soo bixi doonaan waxay u soo wajahan yihiin Jigjiga